Michael Jackson wuxuu dhashay August 29 1958 inta badan dadka way ogyihiin inuu geeriyooday 2009 Michael dhimashada Michael inta badan dadka kuma qanacsana qaabkii uu u geeriyooday lamana hayo cadeymo sax ah markii uu ku jiray isbitaalka Michael Jackson warbaahinta waa loo diiday inay galaan isbitaalka xitaa waxaa loo diiday ehelkiisa iyo dadkii u dhawaa inay gudaha u soo galaan isbitaalkii uu ku jiray Michael Jackson waliba waqtigaasi wuxuu ahaa qof aad u xanuunsanaya waxaana jiray doctor isbuuciiba laba mar u imaan jiray Michael isagoo eegi jiray xaaladiisa caafimaad wuxuuna siin jiray daawooyin u wanaagsan caafimaadkiisa maalin ayuu u yimid doctorka Michael wuxuuna ku duray cirbad saacado kadib waxaa geeriyooday Michael Jackson laakiin su'aashan ayaa ah doctorka Michael inuu dilo ma ka suurtooday oo waxaasi ku talgal miyay ahaayeen ku talgal ayuu ahaa dilkii Michael Jackson xaqiiqda ayaa ah dilkiisa inay qorsheynayeen mas'uuliyadda 2005 waxaa faafay cod uu leeyahay Michael Jackson isagoo la hadlayay maamulihiisa ganacsiga waliba isagoo ku leh waxay rabeen inaan noqdo qofka adduunka ugu caansan iyagoo wax walba i siiyay guryo baabuur xitaa lacag aad u far badan laakiin xaqiiqda ayaa ahayd in aan heli jirin wax hanti ah waxaasina waxay ahaayeen mu'aamaro waana codkii 2005 la helay isagoo la hadlayay xiligaasi maamulihiisa ganacsiga Michael Jackson hadalkii uu dhahay Michael Jackson cid uu ka waday waxay ahaayeen mas'uuliyadda sidoo kale mar uu la yeeshay TV waraysi ayuu ku sheegay waxa isaga lagu eedeynayo inay yihiin mu'aamaro qareenka heesaaga Michael Jackson ayaa sheegay in booliiska ay baarayaan eedo la xiriira wiil 12 sano jir ah oo la sheegay inuu faraxumeeyay Michael Jackson wuxuu beeniyay wax qalad ah inuu sameeyay wuxuuna yiri waan daalay aad ayaan u daalay waxay ileeyihiin ciyaal ayuu damcay ama ciyaal ayuu wax ka raadiyay waxaas oo dhan waa mu'aamaro waqtigaasi Michael Jackson wuxuu rabay wax in uu sheego laakiin nafsadiisa ayuu u baqay kadib hadalkii Michael Jackson markuu uu meel walba gaaray ay mas'uuliyad bilaabeen inay dilaan sumcadiisa oo ay dhahaan ciyaal ayuu damcay waa nin cabtooy ah waa qof aan waxba kala ogeyn waxay bilaabeen dagaal dhan walba ah inay la galaan Michael si ay u burburiyaan noloshiisa Michael Jackson ayaa go'aansaday inuu islaamo kulligeena waan garanaynaa in Michael Jackson walaalkiisu uu muslim yahay Sherman Jackson sidoo kalena loogu yeero Mohammed Abdulaziz mas'uuliyadda waxay ogaadeen inuu rabo Michael Jackson inuu islaamo taasoo ku ahayd wax aad u dhib badan waayo haddii uu iclaamiyo Michael Jackson inuu islaamay waxaa bilaabanaya inay islaamaan taageerayaashiisa oo dhan ama ay raadin ku sameeyaan wax ku saabsan diinta islaamka arintaas oo ay ka soo horjeedeen kooxdan mas'uuliyadda sidaan wada ognahay mas'uuliyadda hadafkoodu ugu weyn waa in ay diimaha ay burburiyaan waxayna aaminsan yihiin diinta ugu weyn inay tahay islaamka marka haddii Michael uu islaamo waxay dareemayaan culays aad u weyn marka loo eego Michael Jackson islaamnimadiisa waxay noqonaysaa mid soo jiidata madow iyo cadaan waayo shacbiyadiisa ma lahan tiro cayiman 2009 waxa la soo sheegay dhimashada Michael Jackson waxaana loo dilay wada aad u degan yaani qaabkii loo dilay wuxuu ahaa mid aad u farsamaysan sida inuu u dhintay camal wadna xanuun ama shay iska caadi ah Michael Jackson waxa dileen mas'uuliyadda doctorkii Michael Jackson ayuu ku dhahay ninkaasi uu dhamay oo way cabsi galiyeen haddii aad dili weysana adiga ayaan ku dileynaa ay ku yiraahdeen waxayna ka soo horjeedeen islaamnimadiisa Michael Jackson muuqaalkeen halkaas ayuu ku egyahay